dagaal joogto ah ayaa ka taagnaa Jamhuuriyadda Afrikada Dhexe ilaa markii uu dagaalku uu ka bilowday 2013. kalabar dadweynaha wadankaasi waa ay ka qaxeen. BBC-da ayaa booqatay meel ka baxsan magaalooyinka Jamhuuriyadda Afrikada Dhexe. Aisha Afrax ayaa ka waramaysa. bartamaha Afrika biyar ayaa waqooyi iyo koonfurba u walhanaya. Kagabandoro waa meel adag ila tago. Waxay 400 kiiloomitir u jirtaa wadada ugu dhow. laakiin safarkuba ha dheeraadee dhibaatooyinka ka jira maahan kuwa aad malayn kartaba. Carruurta dhiciska ahna uma hayaan qalab, waxay ku duuduubaan aluminium. Waxa ma haysano. Gabadhayda oo kaliya ayaan haystaa. Mucaaradka ayaan soo weerareen, urayaan lahaa. Noloshayda mid ka wanaagsan ayaan u rajaynayaa. dagaalku 6 sano ayuu socday. wax caafimaad gargaar ahna kama jira Kagabandoro. hal isbitaal, hal dhakhtar iyo 200 oo kun oo bukaan. shaqaalaha caafimaadka ayaana ka cabsi qaba inay halkan ka shaqeeyaan amni darrada aawadeed. haddii uu amni jiro dadka waad gaari kartaa, mararka qaar dad ayaad shaqo siinaysaa, laakiin ma doonayaan inay halkan yimaadaan. waa dhibaato weyn. amnigu waa dallada guud, wax kasta oo kalena dalladaas ayay harsadaan. xaafadan ay rasaastu lagu iibiyo suuqeeda amni kama jiro. tendooyinka u dhow xarunta qaramada midoobay ayaa ah goobaha kaliya ee ammaan dadku ay ku dareemaan. waxaan joognaa gobol dawladdu aysan awood ku lahayn. dembiyada ayaa ah waxyaabaha ugu daran, maxaa yeelay dadku waxa ay u dhaqmaan sidii inaysan ciqaab jirin. meel yar in u jirta xaafadan waxaan aragnay tuulo laga qaxay oo ay kooxaha mucaaradka ay ku dileen dad gaaraya 26 qof. dadkii badbaadayse ma aysan soo noqon. Kagabandoro waa magaalo ay kala qaybiso buundadan. gadaasheeda waa dhanka muslimiinta, horteedana waa dhanka masiixiyiinta. sidaad u jeedo waxaa kala dhex jooga ciidamada qaramada midoobay. run ahaantii buundadan waxay calaamad u tahay kala qaybsanaanta ka jirta waddankan oo idil. iyadoo nimanka badankood ay dagaalamayaan, dumarkan ayaa u qaxay dalka dariska ah ee Chad. waxay u haysteen inay dib u soo noqon karaan, laakiin halkan waxba uma yaala. markaan soo noqonnay si fiican ma noola dhaqmin. dumarka aad ayay u dhiban yihiin. nimanka gabdhaheena ayay naga wataan. badankeen waana la kufsaday. wax kasta oo qof dumar ah lagu samayn karo way nagu sameeyeen. iskuullada Kagabandoro kaliya uma furna in carruurta wax ay ka bartaan, balse in carruurta dagaalka looga badbaadiyo. Justin waa 15 jir, wuxuuna arkay 7 xubnood oo familkiisa ka mid ah oo la dilayo. wuxuu doonayay inuu aarsado, isagoo ku biiray koox dablay ah. anigii saaxiibaday meydadka ayaanu baadhan jiray. waxay aanu helnaba halkaas ayaanu kala bixi jiray. dhab ahaantii maan jeclayn inaan kooxdan ka mid ahaado. aad baan iminka ugu faraxsanahay in lay sii daayay. haddase waxaa la barayaa farsamada najaarada. dalka Central Africa badi waxaa gacanta ku haya kooxaha mucaaradka. dawladdu awood uma laha inay ka bixiso. Janet waxay ii sheegtay inay doonayso in gabadheedu ay weynaato oo ay wax qabsato, laakiin 10 maalmood kadib gabadh yareed waa ay dhimatay. haddaba waddan aanay nolosha carruurtu wax qiimo ah lahayn, maxaa mustaqbal ah ee u yaala?